dhashay ka gadaala markii xubin ka mid ah dhinacaayo weliba sidoo kale xisbiga Azimio loo diiday inuu gudaha galo iyadoo haatan aad moodid xaaladdu inay isu beddelayso mid gacan ka hadal laamaha ammaankuna arrintan ay shaqo ka qabanayaan. ماشي كده وجامع وحاجات كلكم وحرونت بوماس وحنا جرا بوق أدو فرا بدن تصور مركزي ميديو أنت بدن أدو حوجة دو بيو Ndio venye nilikuja nilikuwa nazunguka hivi yote hii hall yote anaenda hapa anaenda yani kwa kila meza mtu anaenda kwa kila meza daawada waxaa ku muuqda waa xarunta Bomas waxaana halkan ka dhacay daqiiqado ka hor SDG iyo buuq oo labada xisbi gaar ahaan xubnaha Azimio waxay ahayd markii saraakiisha booliska qaybta hoose inuu u soo daadego ay u diideen wakiilka guud ee hogaamiyaha xisbiga xubnaha Azimio musharaxa xilka madaxtinimada Raila Odinga ninka lagu magacaabo Saitabao Ole Kanchori oo ah ninka wakiilka u ah halkaasi ayaana buuq ka dhashay kadibna gudaha ayuu galay ilaa haatan ma cadda waxa rasmiga balse waxaan arkaynaa oo muuqday in nin kamid ah saraakiisha qaybtan hoose fadhida uu waday isla markaana uu geeyay qaybta dambe ee xafiiska guddiga IEBC haatana labada dhinac waxay muuqataa in gaar ahaan xubnaha Azimio ay hadallo kulkul ku soo toorayaan dhinac kale ku eedeynayaan inuu jiro qorshe iyo sidoo kale aan wanaagsaneyn oo sharciga aan waafaqsaneyn ilaa haatana xog rasmi ah ma jirto balse oo guddiga kama uusan hadlin balse waa idin soo gudbin doonaa wixii kala dheeraada sida ku muuqata daawada waa xarunta Bomas qaybta hoose ee lagu xaqiijinayo foomamka saraakiisha deegaanada guddiga IEBC ay keeneen daawada sidaan ku sheegnay waa xarunta Bomas qaybta hoose haatan waxaa noo muuqata in saraakiil boolis dheeraad la keenay oo gaar ahaan kuwa ka hortaga rabshadaha oo doonayaan in xaaladda dejiyaan labada dhinacna sacab ay isku dareen waliba wakiilka hogaamiyaha xisbiga xubnaha Azimio Raila Odinga Saitabao Ole Kanchori ayaa waxa uu shaaciyay in xarunta Bomas ay tahay goob
uu fal dembi ah ka dhacayo. Waxaana haatan noo muuqdaan saraakiisha ammaanka kuwa weliba ka hortaga rabshadaha oo halkan isugu imaaday. waxaana ku muuqda dabada in halkaasi hagaag saraakiishaasi ayaa haatan goobta soo gaaray. Labada dhinacna way sacbinayaan oo waxa ay doonayaan labada dhinac in xaaladdu la dejiyo. xubnihii Azimiyona oo uu hogaaminayo wakiilka kulan ayay gelayaan oo aan arkayno in ay qaybta Bomas dhexe ay ku sugan yihiin oo ay ku jiraan shir manacada waxyaabaha ay ka hadlaan malaha oo isku dubaridkii hawshooda sida ay u qabsan lahaayeen. dhanka kalena xubnaha UDA guna waa dad goobtoodii ku sugan oo weli hadda nooma muuqata wax dhankooda ka socda. markii horeyse ma ahan oo maanta xilliyo kala duwan ayaa waxaa halkan ka jiray dhinacyada kala duwan ay isku eedeynayeen in wax la doonayo in aysan raalli ka ahayn la gudbiyo haddii ay noqon lahayd saraakiil iyo waxyaabo kala duwan, taasi oo xubnaha kala duwan ay ka soo horjeedaan. daawada sida ku muuqato saraakiil dheeraad ah ayaa la keenay. aad iyo aad saraakiil dheeraad ayaa haatan soo galaya goobta oo soo galay si ay xaaladdu u dejiyaan. laamaha ammaanka oo u soo dhaadhacay gudaha hoose xarunta Bomas oo ay doonayaan inay ammaanka sugaan. dhanka natiijada doorashada guddiga ABC natiijo rasmi ah ma xaqiijin oo ilaa haatan kuma dhawaaqin, balse natiijooyinka hordhaca ah ayay guddiga sheegeen. gaar ahaan aqrada everybody sit on your desk. All those who are working, please sit on your desk. waa sarkaal ka tirsan guddiga IEBC oo dadka koraya gaar ahaan dadka qaybta hoose ku jira inay fariistaan. Those who are working, please sit down. We want to have the agents, the presidential agents, and the rest of the people continue to work. Those who are working, the agents, get back to your desk. Sasa wameona sleep. waa sarkaal ka tirsan guddiga ABC oo ugu yeeray dhammaan dadka taagan inay fariistaan, gaar ahaan dadka qaybta hoose oo miisaskooda ay ku fariistaan. dadka aan halkana shaqo ka haynina ay isaga baxaan. waxaa idin muuqda saraakiil boolis oo dheeraad ah oo qaybtan hoose la keenayo si ay xaaladda u dejiyaan.
reinforcement. waxaa idiin muuqda daabade waa saraakiisha booliska oo qaybta hoose u soo daadegaya si ay xaaladda u dejiyaan. taasina waxaa kasii horeysay daabade in wakiilka guud ee hogaamiye Raila Odinga uu sheegay in goobtu ay tahay goob xarunta Bomas gaar ahaan goob uu dambi ka socdo ama goob dambi uu ka dhacay. weli daawadayaal STN ayaad inagala socotaan tabintii tooska ahayd ee xarunta Bomas of Kenya. sida aad u jeedaanba xarunta waxaa aad iyo aad loo soo dhoobay ciidamo tiro badan oo ka tirsan kuwa dalka kuwaas oo sugaya amniga markaasi goobtan. sida aad muuqataanba ciidamada ayaa markaasi isku ballaariyay qaybta kala duwan iyada oo markaasi loogu baaqay saraakiisha guddiga IEBC inay shaqadooda wataan. STN ayaa si toos ah markaasi inooga daalacanaysa. hagaaga Yusuf Gaas sidaad sheegtay in xaruntana oo xarunta ah ay saraakiisha guddiga IEBC deegaanada ku xaqiijinayaan foomamka kala duwan ayaa xisbiyada kala duwan asxaabta siyaasadeed wakiilo ayaa u jooga iyo musharaxiinta xilka madaxtinimada oo arrintaasi dusha kala socda ayaguna xaqiijinta. marka dhinacyada kala duwan ilaa dusha kala socda ayaguna xaqiijinta. marka dhinacyada kala duwan ilaa shalay ilaa xalay aan arkayna in la cabanayo oo cabasho ay isu soo jeedinayaan. shalay ahayd markii Professor Guli uu sheegay oo arrimahan u xilsaaran in ay keenayaan saraakiil dheeraada haddii loo baahdo. haddana sidaan arkayno saraakiil dheeraada ayaa goobta la keenay si ay xaaladda u dejiyaan. maxamed cali oo sidaad u jeedaba xaruntu hadda waxay kusoo laabatay sida caaliga ahayd buuqii tirada badnaa iyo qayladii ma jirto. sida muuqata waxaadna moodaa markaasi halka kore qaybta inooga muuqata sarsarayso halkaas iyagu taagan sida aad u jeedaan. halka markaasi saraakiisha kaleeta ama shaqada ay si caadi ah u socdaan ee gudaha hoose waxaad arkaysaa in markaasi meel walba ay taagan yihiin ciidamada ammaanka kuwaas oo sugaya amniga goobta. ilaa hadda markaasi ma jiraan wax weyn oo dhib oo halkan aan hadda uga jeedno waqti xaadirkani, balse waxaad moodaa ciidamadan intay soo galeen in meeshu markaasi sideedii caadiga ay kusoo laabatay oo wax walba markaasi la xakameeyey. aad iyo aad waxaana sid mudan dhanka kale maxamed cali in markaasi sida aad sheegtay wakiilka Raila inuu halkaasi markaasi qof hadda in la hadda aan xaqiijin karo waxa uu yahay ka kaxeeyo korna uu u kaxeeyay ayadoo ka dursugi doono waxa uu noqon doono. aad iyo aad sidoo kale waxay u muuqataa in ay tashanayaan iyo sidoo kale wadada xigtay iyo waxyaabihii hanaankii ay ku wada shaqeyn lahayn qaybtan oo ay u joogaan xaqiijinta foomamka saraakiisha guddiga IEBC ay keenayaan. qaybta sarena ee kore ee guddiga IEBC ayagoo ay dadka kala hadlayaan Kenyaanka ayaa waxaa ii muuqda in saraakiisha guddiga IEBC halkaasi ayaguna ay u muuqato inay tashanayaan oo ay ka hadlayaan wadada xigta. ilaa iyo haatan lama aysan hadlin warbaahinta xaaladdu siday taho. malaha waxaan rajaynaynaa in daqiiqadaha soo socdo ama saacadaha soo socdo ay nooga warbixiyaan xaaladdu sida ay tahay.
Ule pale mwisho. Ndio wanamtumia kumwambia akague hizi meza kwenye kunaendelea. waxaad moodaa dhinacyadii booqayay ama qaylada waday in hadda iyaguna ay degeen oo xaaladooda ay si caadi ah kusoo laabatay iyadoo weli aad moodid in markaasi cabsi fara badan laga muujinayo ciidamada laamaha ammaanka ee gudaha soo galay arrintana waxaa markaasi ay ka dambeysay kadib markii buuq uu ka dhashay isla markaana wakiilka markaasi xisbiga Azimio ee markaasi Raila Odinga uu ka tirsan yahay oo ah ninka idin muuqda ee jaakada qaybta hoose ka cas wata markaasi uu muranka ka dhashay iyadoo markaasi laamaha ammaankana ay ciidamo fara badan markaasi keeneen Sayid Paul ayaana ninkan lagu magacaabaa xaaladdu imika way degan tahay cabsi badan ayaana ciidamada laga muujinayaa gaar ahaana ciidamada rabshadaha ka hortaga iyaguna haweeneyda loo doortay wakiilka haweenka ismaamulka Nairobi Esther Sares ayaa iyadana soo gashay dhinacyada kala duwan shirar ayay ku jiraan iyadoo wakiilka markaasi isbaahisiga Azimio uu weli telefoon ku hadlayo isla markaana aan la ogeyn waxyaabaha uu ka hadlayo iyo qolada uu la hadlayo intaba balse iminka shaqadii tirinta codadka waxa aad moodaa in ay hakad ku jirto iyadoo aad weli Kenyaanku ay ugu sugayaan ama ay u fiirinayaan natiijada sida ay kusoo bixi lahayd iminka waxa ay sayaan wakiilka haweenka ismaamulka Nairobi haweeneyda loo doortay Esther Sares Sayid Paul ayaa la taagan xubno ka tirsan xisbigiisa waxaana halkan ku sugan ciidamo fara badan oo ka mid ah kuwa rabshadaha la dagaalama weli ayaad naga daawanaysaan daawadayaal waxyaabo kasta oo kusoo kordha mar walba waanu idiin soo gudbinaynaa hadduu alla idmo annagoo markaasi ugu sugan si toos ah xarunta lagu tirinaya dhinka codadka doorashada madaxweynenimo ee dalkan Kenya ee Bomas of Kenya dhinacyada kala duwan kulamo ayay ku jiraan iyadoo xubnaha Azimio iminka ba idiin muuqdaan Sayid Paul iyo Esther Sares iyo waliba sidoo kale xubno kale oo markaasi iyagu laftigooda halkan kulan ku jira isla markaana ka warsugaya telefoonada iyo waxyaabo kala duwan oo ay dirsadeen dhinaca kale laamaha ammaanka ayaa ku sugan wali inkastoo markaasi wax talaabo ah iyaguna aysan qaadeen xubnaha xisbiga UDA ayaa iyagu fadhiya isla markaana indhaha ka daawanaya arrinta ka socota halkan dhinaca kale guddiga doorashooyinka ee xuduudaha dalka IEBC ayaa iyaguna kor waxa uga socda kulan isla markaana ay kaga arrinsanayaan waxa laga sameynaya arrintan wax warakama aysan soo saarin arrinta halkan ka jirta xarunta waxaa aad uga soo buuxsamay ciidamo kala duwan kuwa oo markaa iyaguna lagu adkeynaya dhinaca ammaanka si aysan xaruntan waxba uga dhicin maadaama codad badan lagu tirinayo halkan ciidamadan oo isugu jira markaasi kuwa sida militariga u tababaranaya GSU-da loo yaqaan iyo kuwa rabshadaha ka hortaga ayaa markan xarunta laga soo buuxiyay waxaa sidoo kale ku sugan saraakiil sarsare oo ka tirsan dhanka laamaha ammaanka ma jiro wax wara oo ka soo baxay guddiga doorashada oo la doonayay in arrintan wax lagaga bedelo ama lagaga qabto ama ma jiro wax war gaara oo ay ka soo saareen oo iyaguna ay arrintan markaan kaga hadlayaan
وحاجات وحصورة قرب ورو إن قدوا إلى هالله تذكر إذا مركز سقار كترسم قرية أنك أي هالك كسوقينهين وحبا لك هالله وحد كده عون دانتان ورك يجا دم بحدو على إنه فحد مداح تاني إن حارة سعادة أو قصة نقطي يدو أي دب بلودين شقوين كي مركز يجونا لو تروحان بحين نعاول قضاها دور شوينك iyadoo iminka miisasku ay fadhiyaan guud ahaanba xubnihi kale ee loogu talagalay warqadoodii waxyaabaha la midka iyaguna ay haystaan sidaas in ay uga sii shaqeynayaan xubno sarsare oo siyaasiyiin ah ayaana halkan markaas iyaguna ku sugan وحاجات مثل أيوبو بلودي هاي أنا يجي أيوة أنا كعي أيوة دولة إني بناك أسارة daawadayaal inay xaaladdu ka sii darayso oo markaas si gacan ka hadal ay u dhowdahay hagaag sida idin muuqato sarkaal ayaa goobta laga soo bixiyay ما عدها قيبته وكترسن ياهي إنه وكيل ياهي إنه سركال كترسن قدق ياهي بوق أيانا ولي كده شيء قوبته halkan ayaan ku guuldarnaa waxa si toos ah markaas ka socota xarunta sida aad u jeedaan in mar kale halkan laga qabtay sargaal loo kaxeeyay markaas dhinacaas iyo dhanka u jeedaan sida aad u jeedaan markaas ayadoo markaas xarunta sida aad u jeedaan hadda ay ka muuqato buuq fara badan ciidamo tara badan oo kuwa ka hortaga rabshadaha ayaa halkan la soo dhoobay sida aad u jeedaan waxaana muuqata in mar walba ay markaasi wax isbedeli karaan sargaalka qaybta sare ayaa markaasi ama qofku ahaaba waxa uu qabay maaska afka iyo sanka lagu daboosho waxaana loo kaxeeyay qaybta sare ilaa hadda lama garanayo cid uu yahay in uu yahay markaasi sargaal guddiga doorashooyinka ka tirsan iyo qof gaar ah uu yahay sida muuqata guddiga ayaa markaasi qayb u fadhiya sida halkan hoose aad uga jeedaan waxaana socota markaasi halkan oo ku sugan inta badan mas'uuliyiinta kala duwan ee xisbiyada siyaasadda haday noqoto kuwa UDA iyo kuwa Azimio si toos ah STN ayaad inoogala socotaan saaxiibayaal xarunta ayaad markaasi moodaa mar kale in uu markaasi dadku ay aad u booqayaan oo ayadoo aan ilaa iyo haatan cadayn dadkaasi la kaxeeyay ciidamada booliisku hadda ay kor saareen cidda ay yihiin sida idin muuqata halkaasi waa Ista Basares oo markaasi iyadoo ahayd wakiilka haweenka ismaamulka Nairobi ciidamada ayaa markaasi iyagu ayna suuragal ahayn in la dhaaf aadan barado aale ayadu jeedaan iyo markaasi Moses Kuri iyo saraakiil kaleeto oo iyaguna halkan ku sugan sida halka aad ugu jeedaan aan idinku wareejiyo markaasi Maxamed Ali
hagaag daawada Yuusuf aad baad u mahadsan tahay waxaa halkan idin muuqda waa taliye ku-xigeenka booliska Nuur Gaabow oo asagana halkan ku sugan waxa ay u muuqataa in saraakiisha xubnaha UDA ay doodayaan Xildhibaan Ducaale Kithure Kindiki Murkomen ayaa halkan ka muuqda iyo sidoo kale Moses Kuria ma cadda iyadoona cabashadooda qaybta hoose laga soo galayana xarunta waxaa isku daday saraakiisha ammaanka sidaad u jeedaan oo uma ogola cidi kale inay goobtan ka soo gasho marka laga reebo cidda fasax u haysato inay gudaha u soo gasho waxay u muuqataa dhinacyada kala duwan in haatan xaalad deganaan ah ay timid oo way aamuseen dhinacyada kala duwan waxaa muuqata xubnaha UDA inay cabanayaan senatarkii hore Professor Kithure Kindiki ayaa u muuqata in xubnaha UDA uu aamusiinaya uu ku xaaladu dejinayo kulana taliyay inaysan halkaasi kaaga muuqdo waa asaga oo ugu yeeraya xubnaha UDA inaysan hadlin oo ay aamusaan oo halkan ku sugan sidaad arkaysaan Xildhibaan Ducaale Murkomen Aaron Tabiot iyo xubno kala duwan ayaa halkan isugu yimid iyo xildhibaanada kala duwan ee halkan soo gaaray xarunta Bomas waxay u muuqataa daawada in xubnaha UDA ka cabanayaan haweeneyda wakiilka Nairobi oo gudaha u gashay Esther Passaris qaybta hoose lagu xaqiijinayo foomamka saraakiisha guddiga ABC ay keenayaan oo sarkaal ka soo bixisay halkaasi manacada sarkaalkaasi inuu guddiga u shaqeeyay inuu ahaa wakiil balse qaybta sare qaybta dambe guddigu ayaa loo gudbiyey laamaha ammaankana waa ku xaadiro ammaanka aad ayaa loo adkeeyey sidaad u jeedaan
wakidai kwamba maafisa saraakiisha qaybta hoose fadhiyay buuqaasi kadib halka wakiilka xubnaha Azimio wasagana ku jiro wada tashi ku aadan hawsha ka socoto hoos qaybta hoose xarunta Bomas ee xaqiijinta foomamka saraakiisha guddiga IEBC ee deegaanada ay keenaan wale akipata opportunity haya siku pasali kwa limao naweza muoja masuala ambayo sana daawada waxaa muuqda halkaasi ee qaybta gudaha ku jira saraakiisha iyo xubnaha kala duwan ee qaabilsan ololaha iyo Raila Odinga waxaana halkaasi ka muuqda Nderitu Muredi sidoo kale Gladys Wanga oo ku sugan gudaha goobta iyo Saitabao oo halkaasi ay u muuqato inay ku wada tashanayaan ama ay isweydaarsanayaan xog ku aadan arrimihii halkan ka dhacay inkaydu muuqda waa Nderitu Muredi oo xarunta Bomas ku sugan halkaasi oo rabshadahaasi kadib dhinacyada kala duwan ay showrayaan isla markaana ay ka tashanayaan wadada xigta ay qaadayaan amaankuna aad ayay u adkeeyeen ammaanka hawday malaanin STN warbixinadaasi dhan ku keenayso dib ayaan isugu soo laaban doonaa